xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho gaar ahaan qaybta ay ku jiraan haweenka waxaa maanta laga daahfuray mashruuc qorshihiisu yahay in tababar lagu siiyo xirfadooda kor loogu qaadayo haweenkaas waxaana mashruucan fulinaya hay'adda bisha cas ee Turkiga laga leeyahay mas'uuliyiin uu hogaaminayo safiirka Turkiga u jooga Muqdisho Olgan Bakar ayaa gaaray halkaasi markii kormeer iyo sidoo kale qalabka lagu tababarayo haweenkan uu soo indheeyay safiirka iyo xubno ka socday taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo maamulka xabsiga ayaa kadib waxa warbaahinta la hadlay taliye ku-xigeenka ciidamada asluubta Soomaaliyeed Cabdikariin Afrax waxaana uu ka hadlayaa waxay uga dhigan tahay in haweenkan la tababaro mashruuc loogu talagalay gabdhaha xabsiga dhexe ku xiran oo ka kooban 26 gabdhood ee dawladda Turkigu ay u keentay qalab wax lagu baro oo harqaamo iyo dhar isugu jira waxaan u mahad celinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee garansiiyay walaalaheena Turkiga ah in ay caawimaan dadkan Soomaaliyeed inta ka bacdina waxa mahadsan walaalaheena Turkiga ah oo gartay waqtiga ximeel lagu jiro inay Soomaali gacan siiyaan culayska jirana ay la wadaagaan sidaa daraadeed halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa dawladda Turkiga safiirka u jooga Soomaaliya walaalkeen maanta halkan lagu soo booqday hay'adda bisha cas ee Turkiga laga leeyahay ayaa qorshahan wada waxaana safiirka Turkiga u jooga Muqdisho uu sheegay in qorshahan looga gol leeyahay in haweenku ay xirfado yeeshaan si marka ay ku laabtaan guryahooda ay u noqdaan kuwa shaqaysta oo bulshada ka mid noqda cezaevinde bulunan kadın mahkumlarımızın yararlanabileceği bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan dolayı gerçekten mutluluk içerisindeyiz. waxaa kaloo farxad ii ah in mashruuca loogu talagalay maxaabiista dumarka ah ee ku xiran xabsiga dhexe. Bunun için Kızılay'a ve cezaevi yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Sidaas darteed waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo hay'adda bisha cas iyo maamulka xabsiga dhexe. Bu bir kerelik gerçekleştirilen bir proje değil. Daha önceki projelerden gerçekten ayrılıyor. Mashruucan ma ahan mashruuc hal mar la fuliyo kaliya wuxuuna ka duwan yahay mashaariicdii kale. hay'adda bisha cas ee Turkiga laga leeyahay ayaa qorshahan wada waxaana safiirka Turkiga u jooga Muqdisho uu sheegay in qorshahan looga gol leeyahay in haweenku ay xirfado yeeshaan si marka ay ku laabtaan guryahooda ay u noqdaan kuwa shaqaysta oo bulshada ka mid noqda xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho gaar ahaan qaybta ay ku jiraan haweenku kama aysan jirin wax lagu mashquuliyo ama xirfado kala duwan oo la baro si lamida ragga ku jira xabsiga dhexe oo iyagu wax soo saar la iminka Cali Aadan Muumin Goobjoog Muqdisho.